السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا الصومالي هيلث لايف ستايل وين channel ka alaaba kala xiriirna wixii caafimaadka quseeya in aan saaxiibna ayba waxa uu weydiiyay oo isagoo aan doctor ahayn wuxuu yiri doctor maxaa sababa in dhaqaatiirta fartooda ay qaloocan tahay oo ay noqotay waxaasi wax ay ku caan baxeen marka arigaas waxa aan u arkay anigu waliba waqtigan xaadirka markaan aan tijaabiyay in aan dad badan u qoro dawooyin waxaan ogaaday in ay laba sababood banoon karto farto qalooda kow in qofku yahay ama doctorku yahay doctor ka ganacsanaya dawooyinka oo aan rabin in meel kale laga aado duna saawgeed yani sidii koor ahaan u qoraya gudiyada farta aad u qaloocinaya taas waa maxay waa mid mana aha wax common ah laakiin waxa common ah oo yani around the world ka dhici kara in fartu u qaloocato awgeed inuu tahay in doctorku in badan dawadan qorayay marka si dimagraansay yani joogta markuu qoro farta iska qaloocanaysa leeyahay marka aad shayga doonayso iska hubiso ayaad u fiirfiirsataa migraans magaca shayga aad iska hubinayso ayaad u fiirfiirsanaysaa dabtana si ka faahfaahsan baad u qoraysaa marka iska hubinayso aad ku cusub tahay ama mesela aanad in badan u qorin laakiin haddii aad shaygan in badan qortay ma u fiirsanaysid yani xuruf badan saas u sii raacinaysaa waxa kale oo jirta kuwa migraansa farmasiga jooga in ay already barteen wixii saayso raacsanay siqa yani gooniye soo raacsan bayna dawada yahay oo mesela dawadii isagu intaas oo kuna goorbu maxay soo saaray dawooyinka magacoodina uu garanaya marka waxa maxay yani iskaashatay in farmasiilihiina uu garanayo fartii doctorkina oo reeyay in badan ku celiyay oo aanu ahayn doctor hadda ka fiirsanaya maxay xuruftiisa isugu xigeen waayahay marka waxay sababaysaa in hadalkii israaco waxa aad ogaanaysaa doctorka haddii dawadaasi ku cusub tahay aad isma raacinayo xogaa xarfo badan ba soo kala haraya waxa ku cusubtay dawada hadda soo baxday tahay amaba uu wadan kale tagayo dadana generic name kii waxa isbedeleen ama generic name ku isbedeleen trade name ku isbedeleen dawada magacaas magaca maxay tijaariga ay leedahay isbedeleen marka taas horta maxay u sabab ah in maxay wixii ay noqotay wax commercial lagu shaqeysanayo ogaan loo qalqalooinayo iyo in ay yahay doctorku mid in badan qoriyay waxana oo dibatana marka ay fartiisa noqotay sidaas taada maana badan oo common ah oo anigu ku dhaydo hadda aan ogaaday inaan kamid ahay laakiin ma gaarsiiyo heer aan garanaysa qofka maxay buka aan gaarsiin karo dhibaato ah in dawo kale aan ku qaldo ma garanaysa wixii aan qoriyay ama la fahmi waayaba. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.